kulanti wacan saaxiibayaal waxaa la gaaray xilligii aan bilaabi lahayn barnaamijka qurbaha ma sida loo moodo mise sida uu yahay waxa ay kala qayb gali doonaan wajiyo kala duwan adinkana waqti inoo hura ay soo dhawaada waana mahadsantihiin هي ماشي بوقت lagu akhristo ee ku taala Helsinki Cabdi Muuse Macali Maxmuud oo ah wariye Soomaaliyeed adeega soodo halkani waa maktabadii aan ku balansaneen Cabdi Muuse waa kan iyaag fadhiya Cabdi waxa uu inta badan waqtiga ku qaataa maktabada maxaa yeelay waxa uu leeyahay shirkad turjumista ah عبدي waxa uu afka Soomaaliga u bedelaa afka Finishkana waxa uu u bedelaa afka Soomaaliga maktabadana waxa ay ku taalaa xaafadda Soomaalida ee Itakaskus loo yaqaano waxa ay garab socda waa Cabdi Casiis waxna la socdana waa Cabdi Fataax Cabdi Casiis waa hal abuure suugaanyahan daayar kumanaan siyaasi ah kuwa soo dhaafsaday salaadiin ka sii badan wadaad aan samreyn iyo kuwa seef wataayin qofkana la socday waxa uu ahaa Cabdi Fataax oo ahaa ciyaartoy kubadda kolayga oo ciyaari jiray kooxda militariga Soomaaliya ee Horseed دينك إله سبحانه وتعالى أقول توبة كان يسوي ويستعين من ذلك تبارك وعافسنا لكن أنا أقول ما قرانا اليوم تذكرتي تذكر أبابنا سببت الانترين ووريه حرية عبد القادر الشيخ علي وإيجا شاكيسي dadkii dhaawac u geystay in ay cafisay iyo in kale kani waa Khalid Xudaydi waxa dhalay abwaan Soomaaliyeed kulankeena waxaan ku dahfuranay heesta aabihii uu qaado ee uur hooyo tani waa Nadiif Cali Shadoor oo xog baaris ku sameysay in carruurta lagu koriyo qurbaha iyo in lagu koriyo Soomaaliya sida ay u kala dhib badan tahay Nadiif Shadoor waa ma santa sharmarka in qurba iyo lagu koriyo in gudaha Soomaaliya lagu koriyo wax badan oo farqi ah u dhaxay muuqaalka wareysiyada aan la yeelanay Soomaalida degan dalka Finland ayaa inoo bilaaban doona xaleela socdo waana mahadsantihiin Cabdi Muuse waxaan ku weydiiyo turjumida Soomaalida ma jiraan erayo dhib badan oo aad heli weyso maxaad ku maareysaa luqadan Finishka ayadaaba ah marka ugu horeysa luqad dhif iyo naadir ah oo aan wax يعني هي wadaag ah ama xiriir ah qaab qoraal ha noqoto marka laga rabo inay xuruufaha Laatiinka ku qoran tahay laakiin qaab qoraalka luqadeed iyo qaab dhismeedka naxwaheeda oo dhan aad wuxuu yahay luqad kali ah oo kulli aniga dhowr luqadood oo soo arkay mid hadda aan isleeyahay luqadaas waa looga soo qalin daara karaa ma arkin Finishkana inta badan saddex xaraf marka laga reebo ama afar xaraf saddex xaraf marka laga reebo afar xaraf oo malaynaa inay yihiin sida ay u qoran yihiin loo akhriyo sida afka Soomaaliga oo saas darteed dadka Soomaaliga aad ugu mahadsadka inay bartaan ku adkaashaha marka waxa iigu adag waxay tahay maadaama afkeena Soomaaliga hadda muddo adiga ku dhawaad rubuc qarni ama dadka ka badnayn aan wax dayactir lagu sameeyay in luqaddu waa kortaahay waxyaabo marka adag ahaan iigu yaabka badan waxa kamid ah kelmad ay viran oo maayeen dhahan virka أو أرجع سفيرة وعينين كيمت وحفيز قفجو حفيزنا وكوني وهذه هي الدولة سركال معها شغالة الدولة دي الصومالية لو نفسر كلمة لها سوق لو كلمة لها أكثر من وجود القبضة ومعمول مثلا تصالح عن وحكوا أيضا معجزة أنا وحنا هي دي سعودال كمفت ما هو جانك سعودال أيضا حقيقة ما هنموت في رصده هيئة أسو جورست الدلك وهذه توصل له ترجمة قفك أدو ترجمة هذه ترى هيئة أسو جورست الدلك لقما يا أبو صومالي إنك فهم وحاك لو قدر
dadkan hadda wadooyinka ugu dambeeyay 20 sano dhalinyarada ay 30 sano ugu dambeeyay dhashay erayga hoggaan socdaal ma yaqaanin immigration ay yaqaanin Soomaali ahayn hadda tira hoggaankii socdaalku kelmad xataa Soomaaliga isticmaasho hay'adii socdaal fahmi maayaan wayna immigration tira tusaalahaan hadda anoo ku jira shaqadii turjumista waxa la turjumaana ay muhiim tahay marka aan waayo qaamuusyana ma qabno afka Soomaaliga iyo Finishka ah oo la aamini karo ama la isku halay karo waxaan sameeyaa marka waxaan isticmaalaa aad xariif u ah afka Ingiriiska Finishka iyo Ingiriiskan isku jiimeeya luqadda erayga Finishka ah Ingiriisan ku raadiya Ingiriis markaan ku helana Soomaaliga waa ii banaanka مرن ما كتاجنا أنا كل إساسا استعمال ضدك كل ترجمان هذا ما هو استعماله لكن كلمة مرك يهرت ما ضافك فينش كأ وحن مرك أوه الرئيس كسور راتسده إسلام ماشي أنه ترجمانه وحن لو أقول لها إن استعمالنا قاموسير ما دكشين رياش وحليرة حلو أقول لها إن وما دام هذا أدون كي ولا بعسر إسكان عظيم أنا قاعد وحن استعمالها وكل كمبيوتر كي يقول جرا دكشنري ودور بقوله كونه كلمة ضد يكون جران أو أونلاين سجاسة مرك إنجليزي فينش عن استعماله كده من الصومالي وهلا مركز إنجليزي كان تاريخ السوريان صفدار بسعطة أحمد قولي هالكوسوري سيد كي مصيرين أسوأ لنا سلام قرن آدم باوصارو سياد برمكسوغاش بعدها بإيسرون نظيف علي شدور ما دام المبارس كوبن كسميسي إن عرورت قربها اللو كوريو إيه إن صومالي اللو كوريو فرقه أو دحية maxaa leedahay uu ku soo baxay waa ma santa sharmarka in qurbo ciyaal lagu koriyo in gudaha Soomaaliya lagu koriyo wax badan oo farqi ah u dhaxeeyo sababtoo ah markaan joogno wadan qurbo ah iyo markaan wadankeen hooyo joogno farqi aad u weyn baaritaanka aan sameeyay waxyaabahan ku ogaado waxa kamid ah Soomaaliya markaan joogno hooyada haysata ciyaal wax badan oo looga baahnay ma jireen tusaale cunuga markuu 3 sano gaaro Soomaaliya anaga waxa haysanay dugsi Quraan oo dadka waalidiinta inta badan qayb kala qaateen ciyaalka Korean waxa kale jira in banaanka kala geey talaalada hoostooda ay ku ciyaaraan control badan ma jirin aabaha mas'uuliyad badan ma saarneen inta badan hooyada iyo dadka xaafadda kala qayb ka qaadanay ciyaalka in la koriyo laakiin marka inta imid waxyaabaha la yaabka igu noqdeen la yaab waxay ahayd hooyada iyo aabaha waxa saaran mas'uuliyad ka duwan tii Soomaaliya tusaaladan soo qaadano inta cunuga 3 sano markuu jiro inta badan ciyaalka Soomaalida xanaano wax la dhahayo la geeyaa xanaanada controlka iyo culeyska ku saaran qofka waalidka waxa kamid ah waxa la controlaa qof cunuga dharka u xiran yahay kale waxa la controlaa korinshiha cunuga soo korsan yahay qaabka korinshiha kale waxa la controlaa cunuga farxadiisa iyo murugadiisa waxa la controlaa cunuga hadii wax dhibaato loo geesto tusaale waalidka cunuga haduu wax gaarsiyo kale ama uu cancanto marka farqi aad u weyn oo dhaxeeyo mana isku dhawaani fikirkayga Soomaaliya ayaad ka shaqeynaysay oo wariye ayaad ahayd safarkaaga qurbaha qorshihiisa inta aan lagu dhaawacin ka hor miyuu kugu jiray mise markuu dhaawac ku soo gaaray kadib ayaad qorsheysatay inaad soo safartay شرمك هذا ما حصلت هاي وكذا ما رأينا وراء السجارة سفر كيجا قربها مكان سيرة وقوة وهذا أنت سومالي كتشري وقت وحبرشان كتشري وقتنا أنا ويا بنات شقار وطلابي ويشرين مرة نكون مشرين عن وحبرشان دبده وقال مكان هاي سكول فكرة لكن مرنا مهم من كشقة التوصل كذا دلائي أركي من عادة ودن كيني معانك ودن كينا dadkay gaan dhaxal kale inaan hal mar baxo laakiin safarka ugu badan wuxuu ugu dhashay marka la dhaawacay waayo dalkii kuma noqon karayo xaalad caafimaad baan qalxay la iga soo qaaday aad bay u adkaatay inaan dib ula midoobo waaridkay taasina waxay ka dhigtay inaan ka soo haajiro oo aan imaado qurbaha maalinba meel si isku fiidiyeysana aakhirkii 2014 fiilaayo waa ma santahay Sharmaak Abuukar Amiin waa ku dhawaatay fi qaranka Soomaaliyeed عبد الفتاح عيارهن كوبدا كوليغا غورما سو بلاودي حقين uga soo birtay wallahi waxa waaye waxa uu ku soo bilaabay naadi la yiraahdo Marie Club sanadkii 2009 maadaama aad ka soo bilowday naadigaas ilaa iyo heer
xaggee ayaa ka soo gaartay oo kubadda kolayga marii kale baa ka soo bilaabay ciyaarahayga oo macallin ii ahaa macallin abaari kabacdi waxaa uga soo dalaacay kooxda feero oo isku maamul ahayd oo hal maamul laga wada maamulayay kabacdi waxaa i qaadatay kooxda facaweyne horseed qurbaha goormaad timid halkan maad ku wax baratay halkan maad ku shaqo bilowday sideed u aragtaa nolosha halkan wallaahi waxaan imaaday qurbaha 2008 haduu ilaahay ku roon yahay halkan waxba kuma baranin anuu dugsi sare ka soo baxay imaaday balse waxbarashadayda heer sare maysan ahayn mana liidanin markaan halkan imaadayna hal taargadan lahaa hore u shaqayn jiray markaa wadankii joogay Afrika balse markaan halkan imaaday taageerkii ugu muhiimsanaa ma uusan ahayn shaqo ee waxay waxbarasho maadaama ana qofya waqti badan hayo oo qurba joogo oo familkiis ka soo fogaaday waxaan isku taxluujinaa wax barto kadibna aan shaqeeyo saddex cadow ayaa jira seeriga colaada qortooda suran oo sameheena ma ogola Soomaali idilkeed qabiil bay ka siman tahay Selinga ku mudano waa siyaasi beentiyo gumaystaha sadnoodo saacidaad ka raadsada loo turjumaha sidoo inta badan ku qancaa mana jiraan shakiyo ay muujiyaan marka uu waraysiga ama turjumaada ay dhamaato waxaa jira wax la yiraahdo maadaama hadda afka Soomaalidu ay ereyga la yiraahdo qolooyinkan qofku marka uu ajnabi yahay marka laga reebo socialka iyo isbitaalaadka iyo waxyaabaha marka laga reebo marka uu cusub yahay oo kale oo magangeliya doon yahay tusaale ahaan qofku waxa ku jira argagax iyo cabsi waxa uu isleeyahay maxaa mustaqbalkaagu noqon doona hadalkaagu ma isku toosin yahay ama wax ka qaldameen ama wax kala hilmaantay maadaama hay'adaha socdaalka ama hoggaanka socdaalka saraakiisha ka shaqeysa huna ay isticmaalaan kelmado adag oo su'aalahoodu ay diyaarsan yihiin waxa culayska ugu daran waxay tahay qofku wuxuu isleeyahay maadaama luqad u eg aysan jirin sida aan sheegay wuxuu isleeyahay mustaqbalkiisa dhan oo meeshaas wuxuu heli lahaa ama waddanka wuxuu heli lahaa gacanta turjubaankii ku jirta turjumaanka marka dad badan oo arkaysa aaminsan in turjumaanku uu yahay maadaama uu dhexdhexaad yahay dhanna uusan la jirin uu yahay yani mikrofon lagu hadlo oo kale mesela oo dhinacan wixii ka soo galay dhinaca kale uga baxaya hadana dad badan waxay aaminsan yihiin inuu awood leeyahay ama oo dadkan adaanka ama maxaa la yiraahdaa hoggaanka socdaalka ama booliska ama wixii lamid ah qoladii hay'adaha socdaalka ka socday inuu la shaqeeyo dad badan xoogaa fikirkaas qaba dad kale waxa kale oo laakiin ka daran ba oo mararka qaar aan arkaa meesha markii aan ka soo tago aniga wax lagu turjumo oo kale dib dambo waaba haddii aan xasuusto xitaa cidna kala ma sheekaysan karo waajibka ilaalinta sirta dadka oo sharci ah waddankaana isaaran saas darteed isla qofka inuu turjumo xataa wixii hadaata la weydiinayo hadduu u weydiiyo waa ka meermeeraa inaan toos uga jawaabo أنا قفكنا مركز كحمينين وندهن يعني هذا الكاغ مرة عن اسكو دايا إن ودق سنة يقيني وراديو وأنا إلى ذو حان سي أن سجى إلى أنا قفك كلا خبر لكن شك واقع عندكم تصال هان مرة كغارو ديد من لصيه ترجبانك ولا إيدا مرة كغارو يعني قفك أما سي وكان غدا مراد كيس مركو هلي واجر هذا الكغار لكن ما بطنا مركز سوق هذا إنه قربها كلية xilliyada way isbedelaan xillina waa kuleelo xillina waa qabow xilliyada barafka uu jiro aan arkay nolosha qurba inay aad u adag tahay waliba ay ku adag tahay hooyooyinka barafka in caruurta lagu riixo oo haddana kelinimo ay ahaadaan maxaa ku qasbay is leedahay Soomaalida burburka guryaha maxaa u sahla qoysaska Soomaalida burburka waxyaabaha keenay marka qurbaha la yimid mas'uuliyadda aabaha meesha ka maqan inta ugu badan inkastoo aabaha kaliya aanan saari karin eeda oo hooyooyinka qaarkoodna iyagana ay qaar eed leeyihiin laakiin waxa ugu badan ee qurbaha ku silacay dhibaatada ku gaartay hooyo ugu badan tahay because waxa arkaysaa hooyo kaligeeda ee 8 ciyaal iyada kaligeed noloshooda ay maarayso aabihina uusan ka warqabin waa la kala tagay hadii la kala tagay micnaheedu ma in ciyaalki la dayaco لكن أبيش Soomaalida inta badan markay hooyada kala tagaan ma u haystaan bacunug inuu hore u dhalayo kale marka waxyaabaha la isku qabsado qoysaska burburiyo waxa ugu badan wax
su-aalaha dadka markaan weydiiyo waxyaabahay ka hadlaan waxa ugu badan waa lacaga la isku haystaa oo kis yaroo lacaga ciyaalka lagu qaataa Yurub sida inta badan ay ogyihiin dadka lacagahaasa hooyadu waxay aaminsan tahay cunuga lacagta uu leeyahay inay iyada leedahay aabahina maadaama hooyada ay lacagti ciyaalka ay ku qaadanaysay iyada xaggeeda ay martay wuxuu aaminsan yahay asagana inuusan mas'uuliyadba uusan ahayn dhinaca kale markaan Soomaaliya joogno aabaha mas'uuliyadda lahaa because asaga reerka biilaya wax walba bixinaya laakiin markii inta la yimid waxaas leedahay waxyaabo ugu badan familada u burburaan lacagta tahay عادي فتح مدام أرسل أصو عيارتن كبضة كوليجا ما حسوسن كرتا عيارتك وحيسها بدنيت سيفي عن حال يلا ما لكن كلهم بكحيس بدنا كل أنا عيارين عيرتو إذا بروندي ونوصل بوقتي مقالة مقدشة وكل عيارنا كلية جالسيات وهاد عيارتي يقول رئيس أوفيشيال أو عيارك واحد هرسات عيارتها سنقول وين أكجارنا waxay ciyaarti igu xiiso badneed oo mar walbana aan iloobi doonin sanad walba waxa bartaada bulshada ku soo bandhigtaa dhacdadii xanuunka badneed ee dhaawacaaga adigoo waliba si qiiro leh uga sheekeynaya misleedahay haddaan lagu dhaawici lahayn Soomaaliya joogay aad iyo aad barteeda Facebook sababta ugu soo qoray waxay tahay social media barta ugu awoodda badan ee dadku wax ka akhriyaan bay noqotay markaan ku soo bandhigayna inta badan uguma soo bandhiga in la baqo waxaan ugu soo bandhigaa inay taariikhdu qoraan noqoto tusaale anigu 2011 bishii 9aad baa la dhaawacay inta la dhaawacay ko 6 bilood muddo ku dhawaad ay dhaaranayeen oo hal qof aanan u sheegin shaqaalaha ay shaqeynayay madaxdii حتى وارد كي أي أقعد إن الإدارة يصدق هو يضيع كله إن بدنا يقول يرجع السنة يقول تلاقى شنو شقة ترى كتشوف هذا نمر والبحان أنا السنة قدر إلى هاي المال الوداعية إلى هاي الوداعية يعني سنترين وحكم مهم صن لا شقة يضل كده وايو ما أنت نقول سومالي بان هاي سومالي كل شيء وحكو بشتي أنت كل أكاذي هدانا النفط هي ده كي أهوري كرينين hanti aan la maanta aan shaqeeyo aan siin karaa ma jirto laakiin kaliya waxaan siin karaa dadkayga waxay tahay naftayda inaan siiyo waana sababta igu kaliftay in shan xabadood igu dhacaan weli kama quusan rajada dadkayga iyo inaan u shaqeeyo iyo inaan dalkayga ku noqdo midna weli kama quusanin laakiin mar walba hadalkan shaqa lahaa baan leeyahay runtii dhaawacay soo gaarayna ma ahan mid shakhsiyan xorri ahaan shaqadayda iga joojinaya iyo shakhsiyadeeda laakiin dhiirigelin baan ka qaaday kuwa magaca noo sida qarankeena soobsada suuqyada adduunyada saacbada ka hoorsada waa siyaasi beentiyo gumaystaha sadmoodo saacidaad ka raadsada sokeeyihii xigaalkii isjacayl ku noolaa sunbaa loo walaaqo khad cagaaran baa suran siyaasi qarash la siiyow adaa keenay sababta dhalinyarada qurbaha jooga ee aan shaqaynin ama balwad ay la degtay ama noloshii ka dhacay marka aad aragto maxaa niyadaada ku soo dhacay wallahi waa wax laga naxo waa wax aad iyo aad looga naxo waa sababtoo ah qofkaanayti dhalinyarada keliya ma matalayo familkiisa si wuxuu matalayaa Soomaali weyn iyo bulsho dhan waa markii qof Soomaali ah oo nolosha ka dhaco oo waxba baran oo dhalinyaro u yahay lama dhahayo qofkan waa hebel waxa la yiraahdo qofkaas oo Soomaali oo tusaale noqonaa waana tusaale aad u qol inkastoo ay jiraan dhalinyaro dadaala ayagana kulli ay soo xumeen si ummadoo dhan ma wada wanaagsan haddana waxa wanaagsan qof walba inuu ku tusaale qaato qof wanaagsan waa marka qof wanaagsan ku tusaale qaatay noloshaada horumar inaad ka gaartid mooyee dib uma noqonaysa sawirka aad Soomaaliya markaa joogtay inta aadan imaano qurbaha aad ka haysatay gaar ahaan Yurub iyo hadda aad muddo ku nooshahay oo aad ku ubad dhashay oo aad ku wax baratay oo ku siyaasatay oo aad ku shaqaysay laba sawirneeyeen mise hal sawir ku muuqdo horta niyahow marka ugu horeysa wadankii markii aan joognay nolosha markaas si u fiirso markaas muuqaala ku sawiran kan meesha aad joogto ma aha mid kala ah oo aad ka haysato meel aad weligaa tagin
tusaale ahaan waxaa jira dad qurbaha horey u joogay anigoo kale maalan iyo dadka ila midka ah oo dadkii naga soo horreeyey markay qurbaha ka soo laabtaan ay waddankii yimaadaan habka ay muddo kooban ayagoo u joogaan tusaale ahaan ay kharash u isticmaalayaan fara badan ama lacag u wataan oo iyo habka ay u dhaqmayaan markaad fiiriso waxaa koow marka ugu horreysa keligii maana dadkoo dhan usoo warmaa war qofkan intay yimid maalin walba 100 ama 200 dollar isticmaala horta meesha lacagaan caadiga inaa taalla fikrad noocaasa dad badan waa gashaa inta markii la yimaado marka xaqiiqada dhabta ah la taabana qof aad hadal u sheegtaa una ka qaadana aniga marka waxa soo dhan dhibaato kuma qabin oo fikradaas yani saameyn ugu malahayn laakiin waxaan aad ula fajacay meel marka aad timaado aad nasane oo qabow oo aad nafisi doonto maadaama xogaa dhulka colaad iska ahay marka ka soo tagay aad tegaysaa oo howlba inaad qabato lagaaga baahnayn fikradii ahayo aan qabay aan meesha ka baxday waxaan imid meel marka la ballama dhakhtar la ballama ama xafiis ballan aad ka qabsanay saacadii oo go'an kaliya aan la ballamayna lagu leeyahay 8 subaxnimo iyo 2 daqiiqo ama 4 daqiiqo ama 5 daqiiqo dhakhtarku ballan ku qabana 8 subaxnimo iyo 5 daqiiqana waa intaas oo gow daqiiqadna kuma dareysid inaad ka soo hormarto ma kama dibdhici kartid yani horta jadwalka iyo degdegta iyo saacadaha iyo waqtigii oo dhan oo xiriir ah iyo baraka la'aanta waqtiga iyo waxyaabahaas oo dhan waxay ahaayeen waxaan filayn aniga oo aad aan ula yaabay marka waana la iskala qabsado nolosha qayb ka mid ah waddanka nadiif waxay ugu maqaalo ah caruurta qurbaha ku dhalata ama lagu koriyo inta badan haddii koriinkooda miisaankooda uu saaid noqdo in la isku qabsanayo hadduu miisaankooda dhaco in la isku qabsanayo oo dawladdii ay daba taagan tahay haddii cunuga maskaxdiisa ay zaaid u korto in la isku qabsanayo haddii maskaxdiisa ay liidato haddii cunuga uu aamusan yahay waxyaabo badan baan arkay sidee hooyinka Soomaalida ma weydiisay arrimahaasi ay uga gudbaan marxaladaas aadka wada way jirtaa dhibaatooyinkaas oo dad aniga aan aqaan oo kale dhibaatooyinkaas way ku dhaceen waxaa arkay waxyaabaha aan la kulmay aniga marka baaritaanka sameeyna waxaa kamid ah cunug u dhashay inuu aamusnaado ciyaalka isku sameysmahan Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka kuwa kala duway cunugan uu aamusan yahay iskuulka markuu imaado ma hadlo ma ahan cunug dadka dhex galo marka waalidiinta markaas oo kale waa la wacaa waxa la weydiiyaa sababta cunugan uu aamusan yahay hooyada markay u sheegtay dhahdo cunugan saas uu u dhashay waxay sameynayaan baaritaan badan waxa keenay sababta waxay aaminsan yihiin in guriga culeys uu ka jiro sababta cunugan uu aamusan yahay culeys guriga ka haysto hadduu miisaanka badan yahay oo kale miisaanka waa laga yareeyaa inkastoo lagu qabsasho qof lagu qabsado ma la kulmin laakiin miisaanka in laga dhimo waalidiinta waa lagu wacyigeliyaa dhaqaatiirta way la socdaan cunuga korinshiisa hadduu caatay oo kale waa la isku qabsadaa ama miisaankiisu aad u hooseeya sababta keentay inay ogaadaan waxaa jiro dad ciyaalka loo maxaa la dhahaa ka warhaayo oo iyagu u xil saaran guriga imaadaan way booqdaan waxay ogaadaan qaabka cunuga meesha uu jiifto noloshiisa wuxuu cuno waxyaabaha guriga yaalo adoo ogeyn xitaa qofka loo imaadaan ciyaartoyda noocay doonaan ha ahaadaan ama kubadda cagta ama kubadda koleyga ama kubadaha kale ee la ciyaaro mar walba koox ay la ciyaarayso koox kale waxa jiraan mararka qaar kooxa walwal ay ka muujiyaan la ciyaarkooda iyo kooxa ay rajo weyn niyadooda ku jirto inay ka badinayaan marka kooxda ay isleedahay kubadda koleyga way ciyaartaa marka aad u baxaysaan walwal aad ka muujin jirteen horta hore kubad kastoo la ciyaarayo waxay leedahay ciyaar la yiraahdo derby sida Talyaaniga oo kale kubadda cagta marka soo qaadano waa Inter iyo Milan oo kale waa laba koox oo isku magaalo ah waa derby Ingiriiska oo kale Arsenal iyo Chelsea oo kale Barcelona iyo Real Madrid oo kale so kubadda koleyga Soomaaliya oo kale waxay leedahay ciyaar saas oo kale derby ah waa ciyaar u dhaxayn jirtay labada koox oo ciidanka ah horseed oo militariga ah iyo Hegan oo booliska ah waxay ciyaaraha ugu adag ciyaarno aad u xiisan jirnay geemkaas oo kale geemka kale nooga duwanaan jiray waxa macquul ah in marar badan aad ciyaar ku kulanteen oo aad garoon ku kulanteen kooxdan hadda horseed iyo koox adiga u ciyaaraysay iyo kooxda kale ee Hegan haddii aan ku weydiiyo inta mar aad u ciyaartay horseed aad kooxdaasi ciyaar ku kulanteen ma idinka badin jireen mise idinka guul ka soo gaari jireen markii la yiraahdo basketball in Soomaaliya waxa waaye farqiyo kala duwan ayaa jiro so
mar kasta oo waxa waay kooxda kale micnaha maamulka xagga maamulka kale ee ka wanaagsan tahay oo kale waxa waay dhanka macallimiinta oo kale so basketball muhiimadiisana waxa kamid ah macallimiinta so macallinka hadduu ka wanaagsan yahay macallinka kale waxaa la iskaga badiyay qaladaad yar oo macallinka sameeyo so way jirta kulamo aan ka badinay ayakan way naga badiyeen kulamo waddankan intaad ku noolay maxaa kuugu yaabka badnaa oo aad ilaa haddeertaan xasuusan tahay oo aadan ilaawin oo mararka qaarna ah waxaad ku qosashay والله waxa ugu yaabka badan waxa marka waddanka soo gal luuqadooda waxay ila ahayd af aad iyo aad mucjiso badan walaalahay af jinni anaga waxa dhijinay af jinni marka waddankii joognay luuqad oo af jinni oo dadka isku fahmaan waxa xasuustaa marka waddanka soo galay oo boolisku wuxuu igu la hadlay af finish toos waxa uu weydiiyay makaftamaysa waxaan luuqad maahan adiga see waxa wada markaas wuxuu dhaw luuqadeena waxa luuqad maahan caadis ka dhig waxa ka soo wareegay sanad markii sharciga ay akhrinay anigii oo luuqadii bartay isla ninkii oo bilad turjumaan ma joogin ana luuqadii ku hadlay markaas uu ma xasuustaa waaga igu qosli jirtay dhuu jirto waxa luuqad maanta luuqadii ku hadlaysa ilaa aad markaas soo xasuustaa qosla luuqada ku qosli jiro hadda aan ku hadlay waxa adduunku wasaas maalinna waxaad u malaysaa wax oo aadan weliga aadan gaari karin balse hadaad isku taxluujiso wax walba macquul ina gaarto dhacdadii dhaawacaaga ee xanuunka badnayd oo dad badan oo aniga laftirkayga aan ka mid ah niyadooda aysan ka goyn runtii dhibku waan kula wadaagin waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto fursaddan oo aan ku weydiiyo dadkii ku dhaawacay kastoo aadan garanaynin ma xafisay mise oo diintii weliba kuugu taagan tahay وسؤال مهم شرماكه ودين تورت مر والبا ما بايسو أنا بحريان هذا يقبل أذنا ويضي يورالها كمان بايسو النبر يكون قد حان بدنا حسوس بدنا فريقته فقف استمعت الكلام ديك إله سبحانه وتعالى وكونوا توبة كان يسوي يستعين من بدء بدو عفسنا لكن أنا ما قرأنا يوم بدك تلاقي dadka soo abaabulay sababtii ay direen oo iyagu ku sheegan marka hore inaan tahay shaqada sababta dilka ku intaysan dad Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala maadaama uu caafimaad siiyay shan xabbe iga badbaadiyay xisaabtanka dhiiga iniga iga galeen in badan oo aan rajaynayna dadka la dambiye kala ka galeen dadka dhiiga kala ka galeen xisaabtanka Ilaahay uu yaala laakiin uu shakhsi ahaan xurriye ahaan maadaama aanan garanaynin ولنا يسنى هور إيمان إن نوله من الإنسان أنا نقول وعفي. waxaan ka rabaa xuriyo Yurub sidii aad mooday ma noqotay mise sawir ka duwan baad ugu imaatay Yurub markaan imaanay sawirkan ka haystay iyo sawirka maanta afkar aad u hayda markaan imaanay ayaan soo galay ila ahayd sharci la fahamsanay وقدوده ما أقول نرش أفتح هي قدرة كشرت البداية كم حربنا كذا فائدة استفر صدام يوروب صور كلا قاسين يوم سبنا المركز ما تصور كقاعدة نسأبد وكلا نحتاج وايو مركز سواب بحديدة قدرة كتمادي أو مستوى تسريتي الشرع هالقصيو ميلا دخل من الامتحان وحاب يقصي الدريد مركز أنت على قديم عنده مركز حافظ كشقات وحبرشة ودك وقهد السن كان أكتبين يقولي سمعني حوات كسر هذا حوات كسر برتنا تكسر سكين له في الصومالي شيء وايو ما أقول سبيل في لا كسر له دلار عصب الله وحبرشة عصب الله يعني واحد نقطة حسوس أنت أنا ودك إنه ليش السكرة كعكين يقلب يقولي ودريبك كريستا قفير ده يقصد تير يتعبيره وخلص صوفر يقول إن الله سبحانه مركا صور كيرب يقربها بوصور آد كده بوصور كده ما يرد على الصيف قف كستاد اللي يراه كل شيء يعني اللي وعلن مش أماوية لا لكن أمان ودك إن نخلي كرنا وايو ودك كان بضد أمان كرتي لكن وح كلا وما أنت عندين كرنا وحنا يرب يالو ولدي شيءنا إلهي بقى سر يسير الحرية هذا قلبي الله شرعي هدي هاي سي ولا هاي لكن نرشد الصومالي كويسة واردك الله نومي أتشقي السنة شهادة هذا الأقوى سنة كم هي اللي سكرتها وروح على قبل هذا شهادة هذا لما أقوى سنة
سولو قوينين soomaali kala sire soodimay u yeeleen adigaa sarreeyo adigaa sadron baa sacabka loogu tumayaa siyaasi qarash la siiyo adaa keenay sababta kumanaan siyaasi ah kuwa soo dhidhaafsaday salaadiin ka sii badan wadaad aan samrayn iyo kuwa seef wataayin siyaasi qarash la siiyo adaa keenay sababta saqiir gowraca baa jira qaar saboolahaa jira saxarihii kuwaa jira kuwa cayrsugaa jira soomaali idilkeed silic bay ku nooshahay south african iyo sankadhuudhi baa dila siyaasi qarash la siiyo adaa keenay sababta intaad joogtay qurbaha maxaa kuugu yaabka badnaa oo marka aad keligaa tahay oo aad soo xasuusato aada la fajacda ilaa hadirtaan waxaa horta maalintii iigu yaabka badeed waxayd adiga muddo sanad cabala iyo saasa anoo jooga sanadna ma dhammayn umalaynaa waxoogaa isri luqadda waa barato markaan yani xariif harto turjubaan xataa uma baahne waxaan u tegey caloosha xanuunaysay waxaa la yidhi waxaa la iska baaraa allergic caanaha meeshaan xitaa allergic lagu yahay caanihii waddankeeni la durduura jiray allergic lagu naqdaa waxa la yidhahda lactose intolerance yaa jira meeshaan markaan imid marka dhakhtarkii iyo wixii waxbaa lay siiyey waa lay soo baaray waxba aan soo cabay calaamadihii aan isku arkay markaan dhakhtarkii u sharaxaayay aan la yaabay waxaan maqli jiray dad cadaan oo waxaa jira cunsuriyiin ah waxaan leeyahay wuxuu leeyahay dhakhtarka markaan u sheegay calaamadaasaan isku arkaa caloosha waa intibaraysa sidaan oo kale wuxuu leeyahay markaan toos Soomaali u tarjumo wuxuu leeyahay wax kale ha sheegin wax kale ha dhihin kelmad u dhiganta ugu celcelinaa oraa u dhigantoo kale ha dhihin oo afka finishka lagu leeyahay alamuuta sana waxaan leeyahay marka ninkan hadalkaaga dhanba ma rabiye wax kale hadal dambaba ha igu soo celin afkaaga iga xiro miyuu ula jeedaa war cunsuriga la sheegaayo aan aaminsanahay mogta wixii aan cudad ka qaban ka tegay dhakhtar oo ahaa waa iska baxay si kastaba ha ahaatee muddo markii aan joogay kelmadii ilaan waa eray halhaysa ama hal ku dhigo oo la isticmaalo waxayna u dhigantaaba waxay u dhigantaa waxaad sheegay oo dhan waa kugu fikiraan ahay waa kula qaba warkaas been kuma sheegin waa run iyo xaqiiq ayba u dhigantaaba marka tan ugu yaabka badan oo kaliya markaan dib u xasuusto aan israa wareer dhakhtarka xataa gadaal ma uraadisa ma tira wareer maalinta cuqdada ka qaaday cunsuriyan ku baleeyay raaliga oo xataa waa isra laakiin ma dhihin maadaama inaga aan nahay Soomaali caruurta qaar ee qurbaha ku dhashana af Soomaaligoodu aad u liito in caruurtaas af Soomaaligoodu uu hoos ahaado oo si aad u liidatay ugu hadlaan xagee ka imaataa is leedahay dhibkaas dhibaatada ugu badan qurbaha marka la yimid la dhaxle luqadeen ay u dhuntay waxay la tahay tusaale cunuga waqtiga uu waalidka la jooga yar subaxdii markuu baxo 8 oo kale xanaane la geeyo galabtu waxa la soo wadaa 4 galabnimo hooyadii waa iska hooyo kaligeed inta badan aabahii uu shaqo jiraa tusaale hooyada kaligeed waa telefishinka loo daaraa waxa la kartoon hasi fiirsan ciyalka soo waqtiga yar soo 8 markii la gaaro cunuga sariirta la geeyaa uu jiftaa waqti ku filan ma helo inkastoo anaga alxamdulillah reefilan hadaanahay waa ka duwanahay Yurubta kale jaanis waxa dawladda ay siisa Soomaalida iskuulka loogu dhigo markuu cunuga iskuul gaaro in iskuulka af Soomaaliga loogu dhigo luqadiisa Soomaaliga halka dhanka kalena xanaanada aan ka aadin anaga 3 sano cunuga markuu jiro Yurubta kalena aysan ka aadin oo hal sano cunuga lagu geeyo waa fahmi kartaa hal sano markii cunuga lagu geeyo xanaano waa xilligu wax bara lahaa luqada ugu horeysa soo wuxuu wax ku baranayaa luqadii loo geeyo xanaanada maadaama laakiin Finland alxamdulillah way ka duwan tahay su-aasha ugu dambaysa ku weydiinaya nadiif waxay tahay anoo kaaga mahadcelinaya inaad waqtigan barnaamijkan nala qaadato haddii adiga ahaan nadiifa cali lagu dhihi lahaa caruur kori Soomaaliya inaad ku koriso inaad qurba ku koriso kee dooran lahayd aniga ahaan haddii la dhihi lahaa ani hooyan ahay laakiin haddii la dhihi lahaa hada jaanis haysata aad ku laabatid wadankaaga aad ku korisid ciyaal xornimo la isii lahaa ani waxaan dooran lahaa inaan wadankayga ku koriyo sababtoo ah wadankan aad u adag tahay nolosha in ciyaal lagu koriyo dadka ka maqan ma dareemi karaan laakiin dadka jooga way og yihiin dhibaatada uu leeyahay haddii cunugaaga lagu kontroolayo ee cabsi iyo walwal ku nooshahay ama laga qaataa sida lala socdo dadka inta ugu badan Soomaalida ciyaalkooda laga qaataa soo ani ahaan waxaan qabi lahaa ama aan doorbidi lahaa inaan wadankayga kale aan ku koriyo maadaama aad ka soo tagtay Soomaaliya aad qurbad timid xilli dhowna aad timid ma isleedahay ciyaartii kubadda kolayga waa sii wadaysaa mise ciyaaro kale ayaad u jeesatay mise guud ahaan ciyaarihii oo dhan waa ka hartay maya kamaana harin waa ku rajo weynahay
laakiin marka Yurub imaatid waxa uu imaanaysaa dad duwan dhaqan kale nooc kale soo waxay ka rabtaa wadanka timaad la qabsi soo marka koowaad aniga ahaanteed waxaan ku fikiray la qabsi yarto inaad sameeyo marka koowaad way jirtay sanad koox inaa rabeen inaa u ciyaaro oo la ciyaaro dhowr game laakiin duruufo jira oo ii saamixi waay inaa ciyaarihii sii wato maadaama waxa waaye meeshan arabtid la qabsi ay ka rabto waan rajeynayaa insha Allah marka hadafka aan leeyahay gaaro inaan sii wado ciyaaraha dhan markaa isku soo wada duubno haddii lagu yiraahdo maadaama dalka Finland joogto hal ciyaar dooro oo ugu ciyaarta ugu ilaahid taashaka kuma jiro kubadda kolayga oo hobbigayga waa xawaaye waa qayb kamid ah nolosheeda kubadda kolayga dooran lahaa aad u mahadsantahay adiga mudan su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiinayo xuriye waxay tahay aan ku mahadcelinayaa maxaad ku qosashaa oo aad Yurub ku aragtay oo ilaa hadda aan ka soo goyn ka soo bilaabo hatta safarkaagi ilaa Yurub aad joogto waxa aad ilaawin oo aad mar walba ku qosashay maxay tahay waxyaabo badan marka sharma ku iga yaabiyay xal yiraahdaayay Finland hadda markaan ku noolahay waxyaabaha aan aad ka yaabi jiray waxay kale tahay markii qofka horiba salaam calaykum jirta qofkan mi garanay wuxuu iga salaamaya ilaan igama dhaadhacsana wadankan markaad ku nooshahay dad muslimiin ah nahay koob sanad muslimiin gaar ah xataa wasax laakiin Soomaaliya markaan ku noolaa laga yaabo qofkan garanay hay ma fiican tahay inaan isla rahan halkan qof kasta oo muslim ah ku arko wuxuu ku leeyahay salaam calaykum hadda nafteedu waa la qabsatay qofkan arko war waxaan ku leeyahay salaam calaykum isagoo ku soo dhaweysanaya ma ku yaqaan ma ku lagu istaagay jidkaad maraysan salaam calaykum baa lagu leeyahay waxaan ka shaki jiro qofkan ku garanaya waay uu salaamaya xasuusaha Yurub ee Finland ka mid tahay waxa kaloo aad ila yaabay markaan imid oo bakeeri qofay meel ka dareetay ayku dadku way wadistaan hadii jiray waay qofkan wuxuu because de burbur ma ku dhashay meesha ka soo gaarta musku qofkiisa lagu tuuray marka taasina waxay kamid tahay aniga laftarkayga hadda waxaan qayb ka noqday inta bakeeri qofay ku dhashay ilaa meesha qashinka laga helo ay ku rida aad baa mahadsantahay aad baa mahadsantahay sharmaake waan taagan mahad celinaya fursadda ay siisay salaamiya bahda fiida qaranka waxaan kana salaamaya guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo dunida daafiyada ay ka joogaan Soomaalinimaana deeqada qurbo waxba ma tarayo khiyaantiga marka laga hadlo qof walba wadan buu leeyahay ilaahay wadankeena nabad ha inooga dhigo dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa fursad baad maanta haysatiin fursad aynu ka faa'iideysanay inaan wadankeena ku qabano maadaama aad dhalfan tahay ma jirtaa hees aadan ka daalin dhageysigeeda والله horta dal fanaan waan ahay balse haddana fanka kuma jiro labay kala tahay fanaaniinta waan jeclahay heesaa waan dhageystaa heesaa Soomaaliga kasto waqtiyaashan dambe heesaa Soomaaliga u moodid inay Mareykanka ay raaceen laakiin heesaa horan dhageystaa heesaa hore mid xasuusatid oo aadan ka daalin hadda anigoo kale heesan aabahaaga uu leeyahay uu sameeyay oo uu laxmeeyay haddana uu qaado uur hooyo xaqiiqatan kama daalo dhageysigeeda adiga mid saas ku oo kale aadan ilowin wallahi waa hees uu abo u sameeyay hooyo waxa la yiraahdaa ambaruud kana sax waa hees uu amaane qof walba oo aabba yaqaan oo yaqaana heesta sida badan aan dhageystaan jeclahay balse inkastoo heesta Soomaalida ay kala baxsaneen awaanintii hore iyo fanaaniintii hore oo kulli wada khatariyaan wada dhageysto aad u mahadsantahay adiga aad iyo siin leh cawaala su'aal kooban dhiibtee Soomaalida balgaarsi wiilashii isidii la odayadii isaaniyaday misaanay dan moodeen maxaa hoos la ciidigay sagaal calamo dhaafaa dushaydii la surayo suurayn dhawaaye tawaya isidayo wadankeen Suulaan jiray sunbaa loo dhintaayo kiinbaa wax goysee kuwa soortu qaadee safarkoodu badan yahay sahankoodu been yahay miyaad ila sugaysaan Soomaaliya ha quusanin ka saree cadaawaha sunnihii rasuulkiyo sallallahu alayhi wasallam salaadoo la oogiyo sakadoo aad bixisaan meel sare ku gaartaa maad saatirkeen bay uskunaatay keligiis dhul saliidu buuxdo barwaaqadu ku siman tahay xeebtuna ku saraftaal wabiyadu susumayaan caanaha sibraarkiyo sumag buuxa weelkii beeraha la soo guro Soomaali baa leh sadrigaaga taageli assalaamu calaykum qurbaha waxa ugu badan ee lagu barto waa qabyaalad nabadi way taalaa balse
nolol waxa ay taalaa Soomaaliya xabsi guri waxa uu ku bilaabanayaa markaad qurba timaado dalka nabad Allah inooga dhigo waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo barnaamijka si wanaagsan igu soo dhameeyay waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale saaxiibkay MJ oo bilow iyo dhamaad barnaamijka ila duulayay yaanigo Sharmaake Abuukar Amiin oo idin leh gurigayga waan ku soo nabad laabtay nabadgelyo